bulsho badan oo danaynaysa in Professor Axmed Ismaaciil Samatar gacanta ku dhigo talada dalka Soomaaliland ayaa soo buux dhaafiyay shirweynaha koowaad ee urur siyaasadeedka Hillaac oo maanta ka furmay magaalada Boorama. Shirweynahan ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay mas'uuliyiin tiro badan oo ka mid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland, xildhibaano ka tirsan golahaasi, mas'uuliyiin culus ergooyin ka kala socday gobolada Soomaaliland iyo fanaaniinta xidigaha geeska. Professor Axmed Ismaaciil Samatar asaasaha urur siyaasadeedka Hillaac oo ugu horeyn hadalka qaatay ayaa soo dhaweeyay martidan tirada badan ee ka soo qayb gashay shirweynaha koowaad ee urur siyaasadeedka Hillaac. Hillaac wuxuu u taagan yahay laba amuurood. labada amuurood oo ah wadankan Jamhuuriyadda Soomaaliland 32 sanadood ee imika inta ku dhaweey ay jirtay wax badan baa la qabsaday. waxa badan ee khayrka ah ee la qabsaday oo magaalada Boorana ay u ahayd saldhig u ahayd iyo baroosin in la kaydiyo oo la xafido oo la ilaaliyo ay loo baahan yahay. marka raaxila hadaanu nahay waxaanu doonaynaa inaanu ku ballan qaadno wanaaga wadanka yaala ee la qabsaday in la ilaaliyo oo la kaydiyo. talabaad ee aanu u taaganahay waxa weeye wadankan isbedel xoog leh ayuu u baahan yahay. taana waanu u dhaarsannahay inaanu wax badan wadankan ka bedelno haddii kalsoonida aanu idinka helno iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland inta kale ee ku nool. Boorama iyo dadka ku noolna siday noo soo dhaweeyeen buugaag baa laga qori doonaa taariikhdu hadday nagu sinto. Soomaaliland waxay u baahan tahay inay ka baxdo sixir bararka. waxay u baahan tahay inay dib ula soo noqoto xoolaheedii iyo beeraheedii iyo waxay ku faani jirtay. laakiin waxaan ku soo koobayaa waynu haysanaa waxaan u baahanahay inaan dhaqaaqno gacmihiina ku jirto. madax dhaqameed ka kala socday gobolada Soomaaliland oo hadalka qaatay ayaa sheegay inay taageero u muujinayaan urur siyaasadeedka Hillaac kuna hanwen yihiin sidii ururkan u noqon lahaa mid guul ka gaadha hogaaminta talada dalka. xisbiyadeena hore waxay ahaan jireen wax shakhsi leeyahay u badnaayeen. waxaan ka dardaarmayaa inay noqdo wax laga wada taliyo la wada maamulo la isku aqli celiyo ayaan inagula dardaarmayaa Hillaac. waxaan leeyahay Hillaac hambaliyo Hillaac dareen badan hal ilaahato sida aad u soo abaabusheen iyo sida aad u qurxiseen deema dhawadina. waxaan leenahay Hillaac alla maxaa hawlin aan leeyahay dhalinyarta reer awdal dhalinyarta reer awdal ama galbeedka Hargeysa oo dhanba waxaan leeyahay Hillaac la soo baxa waa ururkiini waa bilowgii maanta waa shirweynii koobaad waa in loo dadaalaa waa in la soo baxaa. haddii aanu nahay reer Gabiiley Axmed Ismaaciil Samatar sidaasaanu sidnaa boqolkoogiina wakaas gacanta idiin taagaya. ilaahay iidankii waxaan baryayaa inaanu kursigaasi ma fahamteen. waxaan dadweynaha Soomaaliland iyo gobolada kala duwan jooga horta ku baraarujinayna badeecada ka soo ukuntay galbeedka Soomaaliland waa badeecad soconaysa. waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland badeecada inay nala qaataan.